subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax Arbaca ah bisha November-na waa 28 sanadka 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya oo booqday dalal uu dalka Masar ka mid yahay. waxaanu ogsoonahay inuu Maxamed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Carabiga uu ka qayb geli doono shirka G20-ga ee ka dhici doona Argentine. arrintaa marka waxay tahay in uu yani suuradiisa wanaajiyo Maxamed bin Salman uu suuradiisa ku wanaajiyo oo waxa weeye wadamada Carabta uu ka bilaabo. waxaad kaloo maqli doontaan dadaallo ka socda dalka Canada oo lagu doonayo in dadka aan weli dhalashada dalkaasi qaadanin ay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka golaha deegaanka. qodobadaas iyo qodob ku saabsan wiil yar oo Soomaaliya 14 jira oo lagu leeyahay gobolka Minnesota ayaan idin haynaa ciyaaraha iyaguna sidoo kale ka mid ah. marka hore warkii caalamka. maxkamad ku taala gobolka Crimea ee dalka Ukraine ka tirsanaa taasoo dhawaan Ruushku la wareegay ayaa amartay 12 ka mid ah 24 badmaaxo Ukraine u dhashay kuwaasoo ciidamada badda Ruushku ay badda ka dul qabteen kadib iska horimaad dhex maray in maxkamad la geeyo. maxkamadda ayaa xukuntay in raggan muddo 2 bilood ah la hayo. Ruushka ayaa badmaaxiintan oo 3 markab oo ciidanka badda Ukraine u leeyahay kala saarnaa ku eedeeyay in si sharci darro ah ay u galeen xuduudda biyaha ee Ruushka isla markaasna ay iska dhaga tireen digniino uga yimid ciidanka ilaalada xuduudda. eedahan ayaa waxa diiday dowladda Ukraine. ciidanka militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in 3 ka tirsan ciidankooda ay dhinteen 3 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino ay ku qaraxday meel u dhow magaalada ay rabshadaha badan ka jiraan ee bariga dalkaasi ku taala ee Ghazni. qandaraasle Mareykan ah ayaa isna weerarka ku dhaawacmay. warbixin kooban ayaa laga soo saaray magaalada Kabul waxaana lagu sheegay in askartii iyo qandaraaslihii dhaawacmay meesha laga qaaday isla markaana ay heleen daryeel caafimaad. faahfaahin intaasi ka badan lama bixin. ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Ghazni ayaa ah caasimadda gobolka Ghazni halkaas oo ururka Taliban uu bilihii u dambeeyay uu ka waday weeraro xoogan uu ku hayay ciidanka isbahaysiga iyo kuwa dowladda Afghanistan. subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiin balka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. ilaa isniintii toddobaadkan oo taariikhdu ay ku beegnayd 26 bisha November ayaa waxaa gobolka Minnesota dalka Mareykanka lagu leeyahay wiil lagu magacaabo Weli Dhuxulow oo dhashay sanadkii 2004 da'diisuna ay tahay 14 jir. wiilkan ayaa arday ka ah dugsiga sare Southwest oo ku yaala magaalada Minneapolis. haddaba sidii lagu waayay iyo dadaalada lagu baadigoobayo ayaa wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascad oo ka wareystay hooyada wiilkan la leeyahay oo magaceedu yahay Amal Cabdi Xasan. waxaa Wali Axmed Rashiid Dhuxulow. weli meeqa sano ayuu jiraa? 14 jira. 14 jir wey. goorma idin kugu war dambeysay marka weli oo aad warkiisa iyo wacaalkiisa aad wey? shalay subaxdii markay ahayd 7 o'clock oo guriga ka baxay. uu barax qaaday iskuulku geeyay. iskuulkiisoo dhiganayay uu ka soo baxay 3 o'clock ka soo baxay. markay 3 camalka ahayd 2 naag iyo hal madow ah iyo nin madow ah ee la hadlayeen ee u waceen baawur oo ay wateen ahaan sheegayn gabdhaha gabar arag Soomaali. halkuu joogay markaas ha ugu degan oo ahaayo maasha Allah. halkuu joogay bay kugu yiraahdeen dadkii ku sheegay
marka ay dadka madowga israacayeen baska stopka city baska magaalada oo baska magaaladu doonaya inuu soo raacamiya may baska city baska high schoolka Minneapolis waxaa laga dhigay city baska inuu high schoolka oo ma ahan baska caadiga iskuuladka oo aad this year last year laga city baska inay ardayda ay qaataan wagas marka meesha dadkii ay idin sheegeen ugu wardambeysay ma iskuulka hortiisa meesha ay baska ka raacayeen ba iskuulka ka soo raacay baska Franklin iyo Portland adi aftanko ka soo raacay la dhahay exactly meesha tahay ma nolosheeda laakiin waxa u maleynaa inay Portland iyo Franklin ay tahay laga watay marka qofka idin sheegay ma qof aad taqaaneen ba gabar oo iskuulka soo dhigtaan gabadhu maxay idin ku tiri marka koy ka aragtay shaqada anagu raadinayno oo weysanay ala waxay gabadhiya soo sheegtay oo dhahdo ana arkay baabuur sidaayay marka baabuurka marka uu raacayay ma baabuur ma qasab oo ku raacay bay leeyihiin mise qof caadi ah baabuurka iska raacay buu ahaa wala information-ka ma inoo sheegin nugta way iyagana la isku qareen oo hadal saxan iyo iimaan ay sheegin qofka wuxuu ku sheegaa ilmihii dhamaa marba wuxuu ku sheegaa ilmaha xataa madowga Soomaali macallimiintii iskuulkii iyo haddaad tagteen oo la hadasheen maxay ku yiraahdeen iyadoo iskuulka ka soo baxeen anaga ma arkin wax laakiin ama shaki gelin kara ama habdhaqankiisu inaanu sidii caadiga ahayn waxyaabayda kaga sheegeen miyaa may unug fiican waaye ardayda soo dhahayn kulligooda macallimiintu kuwa oo meesha ilaaliya waa unug fiican oo hadlin oo maasha Allah sanadkana ugu horeysa iskuulka sanadkan awal xaguu dhigan jiray Parton School Minneapolis Middle School. Okay. Waa sanadkii ugu horreeyay high school ka bilaabo Hamia. Waa sanadkiisii ugu horreeyay. Hadda ka hor miyay jirtay in uu ama guriga ka dhaxo ama uu ka maqnaado waxaad hore ugu taqaaneen miyaa jiray? Ma weligiis ma dhacin. wax aad uga shakisantihiin adinku miyaa jira ama dad horey uu idinkaga sheekeeyo isdagaaleen ama in iskuulka lagu dhibi jiray ama in loo goodiyey ama in la cabsi geliyey waxyaaba la idin sheegay hore miyaa jiray ama waxaad uga shakisantihiin may markastoo aan la sheekeysan jiray waxa uu ii sheegay mala waa fiicanahay galaashadii waa aadaa homogii waa soo adigu wuu fiicnaay haddaad iga sheekayso qof ahaan wiil noocee ahaa waxbarashadiisa iyo habdhaqankiisa haddaad iga sheekayso wuu fiicnaa cunug wuxuu ahaa maasha Allah oo smart oo focus garanayo future-kiisa wiil fiican u ahay oo waa gar ma la xiriirteen ciidamada nabadgelyada iyo booliiska haddaad la xiriirteen samxayda ku yidhahdeen hadda waxaan soo wacay chiefka Minneapolis oo booliiskaan soo wacay aan soo wacay mas-uulkiisa oo qaadiyay because wax weyn oo qaban waayo booliiska ilaa xali ilaa maanta wax weyn oo qaban waayo inagana raadiye anagana dhinaca ka raadinayna ma haysano wax oo maxaa la dhahaa enough information kullidan shalay maqnaa ilaa cawada oo meel lagu hayno information fiican ma haysano marka waxaa loo sheegay chiefka Minneapolis oo booliiska xukumo hadda soo wacay oo marka qaatay ilaa 1 o'clock hadda akhbaar ah heshiino nagu soo warceliyay haddaad ii sheegto marka muuqaalkiisa iyo dharkii uu xirnaa iyo qof ahaan sida uu ekaa haddii aad noo sheegto dadweynaha aan la wadaagno haddii cid arki karta amaba muuqaalkiisa hadaad sharaxdo wuu dheeraay waa laajiskiina waaye midab furan yahay wuu midab furan yahay wuxuu wata jeans oo madow huri fanaanad madow huri oo koofid iyo jacket iyo kabahan oo timber lahaayo waa gartay wiilka weli marka adigu intii uu iskuulkan dhiganayay dugsigan sare uu sanadkan bilaabay wax isbedela qof ahaantiisa aad ka dareenta ma jireen may waxaan rajaynayaa inaad ilaahay soo sahlo isagoo caafimaad qaban iskuulkiin keeno waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee dhageysanayana ciddii warkiisa heshay inay adinka iyo booliiska iyo ciddii la xiriiri karaan bay soo siiyaan kaasi wuxuu ahaa wariyeena maxamuud masacade oo wareysanayay Amal Cabdi Xasan oo ah hooyada wiil 14 jir ah oo ilaa iyo Isniintii toddobaadkan waa 26 bisha November lagu leeyahay magaalada Minneapolis halkaad wareysigaasi ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa booqasho ku maraya dalal Carab ah oo dhowr ah. maalintii shalay ahaydna waxa uu booqday dalka Masar halkaas oo kula kulmay madaxweyne Cabdilfataax al-Siisi. haddaba faahfaahinta booqashada dhaxal suga Maxamed bin Salmaan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa booqday dalalka Bahrayn, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Tunisia, taasoo noqonaysa safarkiisii ugu horeeyay oo uu dibadda ugu soo baxo tan iyo markii la dilay saxafiga reer Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. madaxweynaha dalka Tunisia Albaaji Qaayed Sibsi ayaa madaarka caalamiga ee magaalada Tunis ku soo dhaweeyay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya, waxa ayna kulan ku qaateen madaxtooyada dalkaasi ayagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo arrimaha ka taagan dalalka Carabta. boqolaal u dhashay dalka Tunisia ayaa ku banaan baxay caasimada dalkaasi, kuwaasoo muujinayay sida ay u diidan yihiin booqashada Maxamed bin Salmaan uu ku tegay dalkaasi. sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah bin Salmaan iyo sida ay u diidan yihiin booqashadiisa. dowladda Tunisia ayaa ahayd isbahaysi muhiim u ah boqortooyada Sacuudi Carabiya muddadii uu xukumayay dalkaasi Zayn al-Caabidiin bin Cali, kaasoo xukunka laga eriyey sanadii 2011. dhinaca kale dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan oo shalay gelinkii dambe booqasho ku yimid dalkani Masar ayaa la kulmay madaxweyne Cabdilfataax al-Siisi ayagoo ka wada hadlay xaaladaha mandiqada bariga dhexe iyo xiriirka labada dal. afhayeenka madaxtooyada Masaarida ayaa sidoo kale sheegay bin Salmaan iyo al-Siisi inay ka wada xaajoodeen xiisada dowladda Qatar, waxa ayna shuruud adag ku xireen sidii looga qaadi lahaa cunaqabataynta saaran dalkaasi. dalka Masar kama aysan dhicin dibadbaxyo looga soo horjeedo Maxamed bin Salmaan, inkastoo baraha bulshada ee Masaarida si weyn loogu cambaareeyey booqashada uu ku yimid dalkani. inta uusan soo gaarin Maxamed bin Salmaan dalalka Masar iyo Tunisia ayaa safarkiisa ka soo bilaabay dalalka Bahrayn iyo Imaaraadka Carabta oo si weyn loogu soo dhaweeyey. haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoon-yahan gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada booqashada bin Salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka Carabta. waxaanu ogsoonahay inuu Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Carabiga uu ka qayb geli doono shirka G20 ee ka dhici doona Argentine. arrintaa marka waxay tahay in uu يعني suuradiisa wanaajiyo Maxamed bin Salmaan suuradiisa ku wanaajiyo oo waxa way wadamada Carabta oo ka bilaabo arrintan marka waxa way laba qaybood oo qaybsanayd. si rasmi ah dawladuhu aad bay yani arrintan uga qayb qaateen, waa soo dhaweeyeen. waxaanu la soconaa Masaaridu, Imaaraadka, Bahrayn, wadamadan inay taxaaluf kula jiraan Sacuudiga aad u awood badan. hase yeeshee dhinaca kale waxa waaye shucuubtu aad ayay uga soo horjeesteen. waxaanu ogsoonahay Masar oo kale yani kacdoomada yani taas banaanbaxyo waaweyn kama dhicin, laakiin social media iyo aad looma soo dhaweyn imaanshihiisa. halka Tunis oo xorriyad badan wadamadan kale banaanbaxyo ay ka dhaceen arrinta booqashada lagaga soo horjeedo, buuq badan ay dhalisay. Tunisna wuxuu joogay 4 saac kaliya, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayuu la kulmay, si degdegana waa uga baxay. marka arrintan waxay saameyn ku leedahay dilkii Jamaal Khashoggi. aad baana loogu kala qaybsan yahay. inta uu joogay Maxamed bin Salmaan dalkani Masar, ururada u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo boqolaal saxafiyiin ah ayaa soo saaray warmurtiyeed ay ku diidan yihiin booqashada dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Carabiya. booqashada Maxamed bin Salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa lagu wadaa inuu ku soo afmeero dalkaasi Algeria oo ka mid ah dalalka Carabta ee la saftay boqortooyada Sacuudi Carabiya intii ay taagneyd xiisada dilka wariye Jamaal Khashoggi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira. subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba. Sharmarke Duubow oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee gobolka British Columbia dalka Canada ayaa wada olole uu ku doonayo in dadka haysta deganaanshaha ee aan weli qaadanin dhalashada dalka Canada ay ka codayaan doorashooyinka dowladaha hoose ee magaalooyinka hoos yimaada gobolkaasi. arrinta xiisaha leh ayaa ah in Sharmarke Duubow uu sanad ka hor qaatay dhalashada dalka Canada, isla markiina uu ku guuleystay xil uu galay doorashada golaha deegaanka isagoo durbo bilaabay muddo yar kadib 2 bil markii la doortay in
uu ololahan sameeyo. wariyaha v o e da Canada Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Sharmaarke. ugu horreynna waxa uu weydiiyey ololaha uu wado iyo meesha ay wax marayaan. waad mahadsantahay walaalkiis. kooda hore waan ku salaamay iyo soomaalida meel walba ay caalamka ka joogaan iyo dalkeena hooyo. arrintan aan ku howl jiro waa arrin ka bilaamatay magaalada Vancouver oo magaalada ugu weyn British Columbia Canada ku taalo. waa dhalinyaro immigrant ah iyo qaxooti ah isku yimid. waxay baxdi markii la sameeyey waxaa la ogaaday in ka badan 60,000 oo ah permanent residents aynan u awood u lahayn inayna doorashada ka qayb galaan, siiba doorashada dowladda hoose municipalka ah ma ahan tan provincial mise federal ma ahan. campaignkana waxaa weeyaan in permanent residentida loo ogolaado si ay codkooda u dhiibtaan local governmentida. waa tahay Sharmaarke, marka maxaa idinku dhaliyey inaad u ololeysaan dadka haysta deganaanshaha waxaan loo yaqaano ama PR-ka inay codeeyaan? maxay tahay waxa idinku dhaliyey? muhiimadda waxaa weeyaan sidaad ogsoon tahay dowladda Canada 3 dowlad ayay leedahay, dowladda federaalka iyo provincialka iyo localka waa sida qashinka aruurinaya mise guryaha dhisaya mise streetka waxyaalaha ma aragtay dadka sababtoo canshuur bay bixiyaan. dadka way ku nool yihiin. canshuurka ay bixiyaan weeyaan canshuurada lacagta transportationka aan ku bixino mise serviceka dhan oo municipalka uu sameeyo. canshuurta dadkan aruurino haddaynan codkooda dhiiban karin aynan go-aanka oo la gaarayo dhinaca municipalka aynan wax ka codayn karin oo maaragtay ay dooran karin dad oo maaragtay oo mas-uul ka noqon doono siday loo maamuli lahaa lacagtii iyo canshuurada iyaga laka aruuriyey. talabaadna markuu dadka cusub yihiin waa muhiim u tahay in ay ka qayb galaan dimuqraasiyada iyo sida codadka iyo doorashada iyo u dhacaan. markay noqdaan muwaadin Canada ah marka diyaar way u noqonayaan provincialka iyo federal electionka. waa tahay Sharmaarke, waxaa laga yaabaa dadka qaar inay rumaysan yihiin in dadkii yimid wixii ka dambeeyey 2015 ay keeneen xisbigan talada haya liberaalka. marka dad badanoo saaxiiblaha mawjan jeerdanka xisbiga maxaafidka waxay isdhihi karaan in dadkan ay codeeyaan waxay dan ugu jiri kartaa murashaxiinta saaxiibka dowla ah amaba ka tirsan xisbiga liberaalka. taas idinka maydan muuqataa, maxaase ku jawaabaysaa? waa su-aal fiican. dad badan ka cabsi qaba ma aragtay in haddii qof oonan muwaadin ahayn loo ogolaado in uu vote. horta waxaa weeyaan federal vote ma ahan, taa in la xaqiijiyo waaye. labaad provincial lama ahan. so labadaas dowlad sare qofkan ka codayn kara ilaa uu ma aragtay muwaadin noqon. annaga campaignkiina waxaa weeyaan local governmentida dadka qashinka kaa qaadayo in aad u codeysid. so talabaadna provincea deganahay local governmentida ma lahan party ma lahan, political parties ma lahan. liberal NDP iyo waxaasoo dhan ma lahan. local government political parties ma lahan. waa tahay ololahan aad wadaan waa midkii ugu horreeyey oo noociisa oo intaan ognahay ka dhaca Canada. ma jirto ilaa hadda sidaan aaminsanahay meelo ay dadku ka codeeyaan ayagoo aanan weli noqon dhalashada waddankan aanan qaadan. ma kuu muuqataa in arrinkan aad ku guulaysan kartaan maadaama uu yahay mid uguba? arrintan waa arrin oo maaragtay magaalooyin badan ah. 2005 Toronto way isku dayday. Winnipeg asxaabteeda ayaa hawshan ka wada.
magaalooyin badan waqti badan bay qaadanaysaa shaqo badan waa in wacdigelin dadku wacdigelin la sameeyo maxaa ka mid shirarka oo municipalka isku yimaadaan in oo resolution la hordhigo shaqo badan weeyaan laakiin waa shaqo muhiim ah de waxaa jiro dad badan maaragtay oo qaxooti ku yimaaday oonan basaboor qaadan karin ama kanadiyaan noqon karin sababtoo ah waqti badan ay ku qaadanaysaa kow lacag badan weeyaan inaa applicationka xaraysatid labo requirementada luuqadii iyo waxyaalaha badan so way muhiim dadkii in integrationka dhaqso uu u dhaco xaafadooda ka codeyn karaan maaragtay xodo taa xataa qofka way ka caawinaysaa inuu dareemo inuu waddanka degan yahay uu ka qayb geli karo uu waddankana uu leeyahay kaasi wuxuu ahaa sharmaarke dubow oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada victoria gobolka british columbia waxa uu warramay wariyahayga dalkaasi canada xuseen nuur xaaji halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatana dhinaca ciyaaraha ayaan gelaynaa waxaa inoo haya wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiya igu heliya iyo wariyaheena minnesota maxamuud mascade dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise leh oo ka tirsan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub mascade ciyaarihii xalay dhacay bal sidee loo kala badiyay yaa haray yaa soo baxay waad mahadsan tahay dabcan kulamo badan baa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa oo ilaa groupka E iyo groupka H ayaa la iskaga hor yimid haddii aan ku bilaabo group E kooxaha iskaga hor yimid waxaa kamid ahaa EAK Athens iyo Ajax ayaa ciyaaray 2 gool iyo waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta Ajax ciyaaryahan Tadic ayaa 2 gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Bayern Munich-na Benfica ay 5 gool iyo 1 kaga badisay ciyaaryahan Arjen Robben ayaa goolashaasi 2 kamida u saxiixay Lewandowski 2 kale uu dhaliyay goolka kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahan Frank Ribery waliba habeenada ay sida wanacan u ciyaaraan ayay kooxdaasi guul heshaa ciyaaryahan waliba Arjen Robben waa taqaanaa markuu jirada ka soo leexdo darbadiisa bidixeed lama celi karo aad iyo aad marka groupkaasi nuura waa lagu kala baxay oo waxaa u soo gudbay wareega 16 Bayern Munich oo kaalinta koowaad ku soo baxday iyo waliba Ajax inkastoo kulan uu dhiman yahay oo kulankaas cidda kaalinta koowaad galaysa uu isbedeli karo laakiin labadooduba waa ay soo gudbeen groupka F waxaa ku wada jiray Hoffenheim iyo Shakhtar Donetsk daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta Shakhtar Donetsk ayaa 3-2 ku badisay Lyon iyo Manchester City-na 2-2 bareejaha ay u kala baxeen oo waliba ciyaaryahan Aguero ayaa goolka bareejada u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester City groupkan Nuuro iyagana 10 dhibcood waxaa leh kooxda kubadda cagta ee Manchester City 7 dhibcood waxaa leh Lyon Shakhtar Donetsk badiska ay badisay waa uu soo dhaweeyo 5 dhibic ay leedahay kulanka ugu dambeeyana Shakhtar Donetsk iyo Lyon ayaa isla ciyaaray marka ciddii badisa kulankaasi ayaa dabcan noqon doonta cidda kaalinta labaad ku soo baxda oo iyadu wareega kale u soo gudbi doonta marka groupkaasna sidaas ayaa lagu kala baxay Nuuro groupka kale isagana G waxa iyaguna fooda isku daray CSK Moscow iyo Victoria Plzen 2-1 Victoria Plzen ayaa ku badisay kooxihii Real Madrid iyo Roma ayaa ciyaaray oo guriga Roma ayaa lagu ciyaaray 2 gool iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku guul heshay groupka ugu dambeeya kulamadii habeenkii xalay la ciyaaray dabcan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag la ciyaaraysay kooxda Young Boys kooxdaasi waxa sid mudan Nuuro 90 daqiiqo markii la gaaray waliba daqiiqada lagu daray in uu gool u dhaliyo ciyaaryahan Fellaini oo goolkaasi ku guul heshay Mourinho farxadda iyo carada isla jirta darteed wuxuu la ku qaaday ciyaartoydu ku cabaysay miduu dhulka ku dhaco iyo miduu mataqaanaa darbeeyo ayay noqdeen waxa intaas dheer kubad uu qasaariyay oo gool uu ka filayay inuu dhaliyo ciyaaryahan Rashford sida uu uga falceliyay ayaa iyaduna ahayd arrin la yaabkeeda leh Juventus ayaa iyana badisay oo Valencia waxay kaga badisay 1 gool iyo waxba Mourinho iyo kooxdiisii nasiib wanaag way soo gudbeen oo iyaga Juventus ayaa kaalinta labaad u soo gudbay walow ciyaarahan wali ay hal kulan u dhiman yihiin waa gartay waqtigana aad ayuu noogu yar yahay mas'ado hal ilaba hadii aad ka soo qabato kulamada xiisaha leh ee caawa dhacay waxa ugu xiiso badan kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Liverpool guriga PSG ayaa lagu ciyaarayaa Neymar iyo Mbappe ayaa la hubin inay ciyaari doonaan in kale waxaa la filayaa inay kulankaas ciyaari doonaan PSV
iyo Barcelona ayaa kulmaya laakiin Tottenham Hotspur iyo kooxda Inter Milan ayaa iyagu ciyaari doona groupkaasi Inter 7 dhibic ay leedahay Tottenhamna 4 dhibic ay leedahay hadii Tottenham badiso markaasi oo gool badan ay ku badiso waxa suuragal ah inay fursad halka haysato ciyaarihiina dhageystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waa Mascad iyo Nuur oo idilna sida iyo nabadgelyo Mascad Nuur aad u mahadsanyiin ciyaaraha saddenaadka ka gudubno dhinacii heesaha hadaan u baydhno waa hees uu qaada fanaanka Sayid Khalifa heestuna waa hablaha geeska Afrika magayun magamashin magumudin magagishin magablulin mangurin magabin halkiye gabaydina mandayn gera radaydi iminkan gardacho wali anguna nadine urti man kuntedio barangol dikkedo kunta degi aqunu wali dar lahimba wali gula hadalko wali badina garcode sidawi ganano cirka gudul lamalo biyi ku gaxdiyo wali yadi soo degayay تصدق فاعيو ولا ما ديرو قال لي شبي هبنكي وبقى عن مسور رغيي وراعيو قلالكي كنت أحدد كما وشراي كل كعوة قلاليو وبقى قلها ما تقتقيي وبقى أفرتك ديديي Ligu garantirayay Gurmashada dagaalkiyo gulubkiyo colaadaha gobahan nafwaagiyo halkaan la isku gowraco kulka gurda la isdaro haddaan dumarku gooyaa وبابو كعينين سيدا قالوا قاتيلو لين جيسي غير كيف برتقوما قمالي برتقوما قمالي سوريا سمو برواقا دولكا جيدو تشيفان حاسي heestaas hablaha geeska Afrika ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacadda iyadii subaxnimo inta hadii la dhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono heestaasi fanaanka Sayid Khalifa ayaan idinkaga tegaynaa anigoo Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abi Karoodin la sidaas iyo subax wanaagsan صعبك لو جرو قبلها وقارو قرشدا عدكودا قرشدا عدكودا وفقدو بيك عيسو يلبسكيو مشحردا كما كايلاتي أدان قباري بودين كان لقى جرين قولي سحابيو عيان كان لقى قرين مروة مرقر كاوحدا اللين قولي دكسون مالي اللين قولي دكسون مالي اللين قولي دكسون مالي قادها بنكي قلقلشيو جددون كداليسو أديجيو قواعا هتبدينا كبورو بركين كدقبوبيو كاشان كديغتاي أدان قد هالدالي. This program has come to you from the Voice of America, Washington.